waxaynu soo daynay oo xorriyadoodu dab u helay in ku dhawaad 12 wariye 12ka wariye shaqaaqadii ka dhacday jeelka weyne Hargeysa ayaa xadigoodii runtii lagu xidhay maantana xorriyadoodii bay heleen oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo runtii waanu mahad celinaynaa mar labaadka waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawsha isaguna qayb laxaad ka qaatay siideynta suxufiyiinta iyo taliyaha ciidanka bilayska waxa kale oo si gaar ah ugu mahad celinaya xildhibaanada halkan imiga taagnaa xildhibaan Rambo iyo Xilirsi iyo Cabdullaahi Gacmo Dheere iyaguna qayb laxaad ka qaatay dawlad baynu nahay sharci baynu leenahay sharcigaasa ummadda iyo dawladnimada iyo dadka runtii kala hagaya waxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku ololeysay oo ay ku kaambay gareysay inuu sharcigu sarreynayo sharcigaana runtii sarreynaya aad iyo aad baan madaxweynaha iyo cid kasta ka qayb qaadatay baa ugu mahad celinaynaa runtii waanan ku faraxsanahay inay xorriyadooda helaan inta sidii wasiirka warfaafintu iyo wasiirka arrimaha guduhuba sheegeena iyadana waxa aan runtii sharcigaas aynu ku kala baxaynaa sharcigaasana dalka u yaala cidda sharciga ilaalisana si sharciyada ayay runtii ay uga qayb qaadanaysaa oo xorriyadooda u helaysaa ciddii sharciga ku gaftana laamaha sharciga iyo amniga sharciga marinaya waxa hore laydin ballan qaaday in sifaha sharci la marin doono sharcigana lagu kala bixi doono sharciguna uu sarreyn doono ciddii xorriyadiisa ay siisaana xorriyadda ay qaadan doonto ciddii sharcigu runtii uu reebaana sharciga iyaduna ay runtii ay sharciga wajihi doonto waxa markaa ka wadaa halka waxa ka hadlay dhalinyartii xabsiga ku jirtay runtii aad iyo aad baan uga xumahay inay saa u hadlaan waayo waa dad muwaadiniina qofku muwaadinkeena qaladna wuu samayn karaa dembina wuu geli karaa qarankooduna wuu cafin karaa sharciguna waa sii dayn karaa runtii waana xukumi karaa dadka aad ka warramayseen ee xabsiga ku jira waxay xabsiga ugu jiraan ay xorriyadooda u waayeen waa falal iyo dembiye ay qaranka ka galeen qofkuna haddii uu qalad sameeyo qaladkiisa macsuum maahe waa lagu qaadaya sharcigeennuna waynu fulinaynaa ciddii dambe ee wixii dambe samaysaana sharciga inoo kala dhaxaynaya oo runtii samaynaya oo inoo kala dhaxaynaya marka waxaan jecelahay in arrintaa la siyaasadeeyo oo runtii si qaldan loo dhigo oo aad runtii raggii halkan ka xildhibaanada ahaa aad sharafta ka xayuumisaan iyagoo idiin doodayey oo runtii madaxweynaha idiin hor fadhiistay oo meel walba runtii idiin maray annagoo mas-uuliyiintiina ana runtii iyaguna aanu idinla joogno in saa loo hadlaa runtii aad iyo aad umaan jeclaysan laakiin mar walba Soomaaliland waan ku celinayaa saxaafadda iyo xorriyatul qowlku waa mid aynu ku soo nabad iyo caanamaanlay waa mid ay xukuumadda madaxweynuhu ilaalinayso waa mid aanu ku dhaqmayno laakiin cidna sharciga kama weyna qof sharciga ka weyni ma jiro xeerar baynu leenahay dastuur baynu leenahay dastuurkaas iyo xeerarkaasi cidda uu xidhnaana way xidhmayaan cidda uu sii daayaana way sii daysmayaan waxba yaan lagu tiigaalin waxa kaloo iyadana halkan doonir haligelin ka bixiyo dhalinyartii halkan ka hadashay qaar rag si fiican u hadlay bay ahaayeen meelihii ay ku xidhnaayeen iyo ciidamadii kala duwanaa ka mahad sheegtay qaar caayay oo aflagaadeeyey bay ahaayeen marka ciidamada iyagana xaal baanu siinaynaa raaligelinna runtii waanu ka bixinaynaa qadafkaas iyo waxyaabaha runtii lagula kacay aynu kala saarno shacabka reer Soomaaliland iyo warbaahintaay haddii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi mucaaradnimadeeda iyo xusbiga kulmiye iyo qarannimada dadka daldaloolinaya ee misbaarka ku mudaya ee marka la qabto waxaynu dhaqan u lahayn si wada jir ah iyo caado ah inaynu meel runtii uga soo wada jeesano annagu xukuumadda dawladdiinii weeyaan dadkiinii weeyaan idinkama difaacayno waana la dhaliiri karaa dulqaadna waan u leenahay runtii wixii laga sheegaynayna hore imikaba waa sheegtaan laakiin waxyaabaha qarannimadeenna wax u dhimaya ee sumcaddeenna dilaya taanu ka waanayna dhalinyarta ee aanu uga digayna runtii waa taas in la kala saaro qarannimada iyo mucaaradada yara soke geed weyn baynu nahay oo runtii damala geedkaa weyne damala laamaha ka baxay laanta aad doonto waad noqon kartaa xusbiga aad doonto waad geli kartaa laakiin jirridda yaan la jarin baan leenahay waar jirridda iyo qarannimada yaan la jarin ayaanu runtii dhalinyarta iyo warbaahinta runtii aan u jeedinaynaa cid dalkeenna soo faragelin kartaa ma jirto
cid adbaaq loo diran karo gaala iyo cid ina kale oo maamulkeena xukuntaa ma jirto aad iyo aad baan inta sida wanaagsan u hadashayna ugu mahad celinayaa intii sida xun u hadashayna xaal baan ka bixinaya horta haddii meel kasta la qodqodo oo runtii wax laba'aan jirin bulshada iyo mujtamaca laga baadho hore waxaynu qornay oo xeerkeenna saxaafaddu runtii ina farayaa oo dastuurkeennu ina farayaa oo xeerarka aynu dhigayna ina farayaa in meelaha ciidamada iyo xabsiyada iyo xeryaha dawladda warta fadiran oo dheeli tiran oo sugan runtii laga sii daayo ciddii intaa waxaan hayn ku kacdaa iyadaa runtii waxay waajibka waaran baa lagu qabtay oo waxa lagu soo qabtay sharci oo maxkamad baa loo maray baan ku uri mise sharci darraa lagu soo qabtay adeer waan ku celinayaa dalka sharciga ka xog shaqeeya xeer baa aad ku dhaqantaa xeerku wixii uu kaa reebay ciddii lagu qabtay ee fashay sharciga la horgeeyay baa ku uri